السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتم بأديات بدين سلامية وحنكون سلامية سلامة إسلامك ميركستاد جوكتان إيه مدركستاد كسوغنتين به ما أنت وحنو قادنا إن 10 كسابسن 10 ردي تحناها إيه هكادا أفكا عربية أما هكادا قرآن كريمك ما أنت وحنو قادنا إن 10 أينو قوما قعدرني هوسليك ومحويهي hadda casharadan qaadano waxa weeyaan waxna wax loo yaqaan xuruuf ba loo yaqaan waxna xaraka loo yaqaan xuruufta hal mar baa la bartaa waana marka alif iyo ba iyo ta iyo tha iyo jim iyo ha ila iyo ya wax loo yaqaan xuruuf ba loo yaqaan wixii inta ka baxsan waxa weeyaan xarakada waxa dusha laga saarayo iyo waxa hoosta laga dhigayo iyo waxa wixii dusha sare ka saaran oo dhan xarafka ayaad baranaysaa iyo wixii hoosta ka maro oo dhan ayaad xarafka baranaysaa xarafku qalqalooxsamaya oo waxa qaloocinaya wax walba oo dul saaran iyo wax kasta oo hoos saaran hadda tan waxa loo yaqaanaa maxaad u taqaanaa taa haddaan ku weydiiyo waxa la soo boodaysaa ba laakiin waxaan kuu sheegayaa ba tasaa qaabka looma qoro haddiiba bacdu qaabkee loo qoraa bacdu waxaa loo qorayaa bacdu wata oo bacdani maxay tahay bacdan waxaynu baran doonaa marka aad meel fiican ka gaadhid higaada wax loo yaqaano ayaad baran doontaa bacdan quraanka kariimka aad bay uga buuxdaa iyadoo aan waxba dusha sare aan waxba saarnayn sidaas ba يعني qaabkaas oo kale bay quraanka ka yani ay ku qoran tahay haddana qaab ayaa loogu dhawaaqa looma dhawaaqo ba insha Allah ta'ala waanu baran doonaa laakiin maadaama aad arday aad yani u hoosaytahay waa in ba lagu dhawaaqa macallimiintu saas bay ka wadaan laakiin macallimiinta kale ee macallimiinta markaad ama casharka si fiican u qaadatid oo aad higaada dhamaysid baad waxaad ogaan doontaa taasi inay ba tahay iyo inaanay ahaynba okay ba haddaan ku yiraahdo ba noo qor ama qorba waa inaad ba'da qaabkan qortaa waa inaadan ka ilaawintaa waa inaad mar walba la ku dartaa ba'da qaabka weeyaan marka tani wataad markii hore u taqaanay ba haddii aan hoosta ka mariyo oo sidaa iraahdo bi bay noqonaysaa oo tan waxa loo yaqaanaa Soomaaliga waxa loo yaqaanaa Soomaaliga weeyaan marka haddii aan sidaa iraahdo oo kaana dhinac dhigo waxay noqonaysaa bi okay bi waa qaabka weeyaan carabigana dhibicdii baada ahay waxaan rabaa inaan dhibicda aan yareeyo dhibicda ka bacdina wata waxani iyo kan waa isku mid waa iyo marka bi waxa ka dhigay oo baadii hoos ka dhigay qaabka ka dhigay waa waxa dusha laga saaray iyo hoosta laga marinayo ayaa yani baada dhawaaqeedii bedelaya marka sidaas daraadeed waa inaad aad u barataa wixii dusha laga saarayo baada iyo wixii hoosta laga dhigayo baadu intee u qaybsantaa in yar oo sharaxaad yar haddaan kaa siiyo baadu waxay u qaybsamaysaa dhowr qaybood eeg tusaalahaan taa waxaa loo yaqaanaa ba tan waxaa loo yaqaanaa bi tan waxaa loo yaqaanaa bu baa loo yaqaanaa intaa markaa baratid waxaad baranaysaa iyadoo alif inta lagu taago laba kordhig la siinayo oo ban baa loo yaqaanaa waxaad baran doontaa iyadoo laba hoos dhig leh baad baran doontaa waxaad baran doontaa iyada oo haddana laba gudniin leh oo bun ayaa loo yaqaanaa tana waa bin weeyaan tana waa bun intaa markaa baratid waxaad baran doontaa haddana baadiyo alif ku taagan laakiinse alifkaasi ku reeban yahay waa baa weeyaan waxaad baran doontaa baadii oo ya yani ya wadata taasna waxaa loo yaqaanaa bi waxa weeye baadii oo wadata wow bay wadataa يعني wowgaas ay wadataa waxaa loo yaqaanaa buu waa loo yaqaanaa waxaad baran doontaa alif markaasi
oo saas oo kala oo baadi lagu reebay marka waxay noqon doontaa iyaduna up bay noqon doontaa eeg inta marxaladood ay martay waxa dhiman baadi oo shad dusha ka saaran yahay shadkaas isaga marka aynu gaarno ayaynu ku dhawaaqi doonaa Soomaaliya intaasoo marxaladood ayaad maraysaa waa bacda kaliya alifkuna sidaas oo kale buu marxaladahaas oo dhan u marayaa ya ilaa marxaladahaas oo dhan buu alifkuna marayaa ta'duna sidoo kale intaasoo marxaladood bay maraysaa ta'du ilaa intaasoo marxaladood bay maraysaa jiimkuna sidaas oo kale buu isaguna intaasoo maraaxil u marayaa marka waxa laga doonayaa in aadan ku wareerin macallimiintuna ereyada iyo sharxaadaha iyo casharada badan inta ku siinayaan aan ku fahansiin intooda badan inaadan ku wareerin insha Allah waxaan rajeynayaa inaan anigu ku noqdo macallinka kuugu fahansiinta badan ku aad ku fahansiin doona inaan anigu ku noqdo baan rajeynayaa insha Allah haddii Allah idmo haddaba maanta waxaynu qaadanay casharkeeni koobaad kan ahaa kaasoo ahaa casharkeeni koobaad casharkeeni waan leenahay shanaad oo kale kana waa casharkeena caawa ama maanta aynu qaadan doono waa ka weeyaan marka aynu si fiican u eegno waana kan baada kale aan tusaale kaaga soo qaadi lahaa kaaga soo qaadi lahaa qaabkan ay noqon lahayd marka maanta ba kaliya baada maraaxisha ay martay weeyaan maanta laakiin waxa weeyaan isagii oo dhan casharkii oo dhan hal marxalad baynu marinaynaa waa markii hoos dhig laga wada dhigo kaasaynu marin doonaa qaabka lagu dhawaaqo marka aynu bal carabi ahaan intaan iska masaxno kan carabkeena eegno الحروف مع الكسرة أي لو يقنا حروفته له كسرة أما هوس ليجا كسرة وهوس ليج إن صومالي هوس ليج بلو يقنا إن هوس ليجو محويه ألف لكورنبي ألف لهوس ليجي صوما مقدر شرين ما أنت كاني وحويا ألف لهوس ليجي إن مركب حلين هاي ألف لهوس ليجي يا باء لهوس ليجي ما دحين صح لكن waxaan dhahaynaa dhawaaqi banu tagaynaa ma doonayno la hoos dhigayo la goday waxa inaan ku maskaxda ku daalino balse qaabka lagu dhawaaqayo muxuu yahay intaas muhiimadu tahay intaas aan doonayna inaan barano intaas muhiim ku yahay laakiin macallimiintu wala qiyaaba inay la hoos dhigayo la goday iyo la kor dhigayo waxa ay ku weerariyaan kordhig iyo hoos dhig iyo waxa dhow Soomaali iska dhaaf laakiin carabi ahaan maxaa lagu dhawaaqayaa inta nuxurka ayaan ku baraya insha Allah ta'ala hadhow tobaas ka baran doontaa kordhiga iyo la gudiy waxa soo dhan ku wareerin marka saas daraadeed halkani waa weeyaan hore waxaan soo qaadanay aadu intan oo dhan oo laakiin dusha laga saaray dusha sare ayay ka maraysaa marka laakiin anigu maanta waxaan casharkan qaadanayna waxa weeyaan waa hoos dhig weeyaan yahay b weeytani تنواتي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي 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 عي غي في قي كي لي مي ني وي هي ان هورنا waxaan soo qaadanay a ba ta ja ha kha baan soo qaadanay maanta waxaanu qaadanaa iyo b iyo t iyo j iyo x iyo x iyo d iyo c iyo j iyo x iyo x iyo d iyo d iyo r iyo z iyo c iyo sh iyo c iyo d iyo d iyo d iyo c iyo q kana q baa la dhahayaa kan halkanana q baa la dhahayaa q waa la kala yareynayaa marka kan waxa loo yaqaanaa qi waa qoyn waxa wala yara weynaya laakiin qi baa la dhahayaa waa qi caadi ah qi weeyaan isku meelay ka soo yara baxayaan laakiin kan waxa wala yara weynaa qi qaab xoga weynaan weeyaan laakiin kan waa qi weeyaan kan waa ki weeyaan ki waa ka sokeeya meel soo ka soo baxaya isagoo ki xoga neef yar buu leeyahay ki kan neeftiis mikrofoonka wad ka dareemaysaa neefta ki
kan waa li, kani waa mi, kani waa ni, kani waa wi, kani waa hi, kani waa yi. waxaan ku barayaa tactic yar oo aad ku baranaysid xaraf kastaba qaabka loogu dhawaaqayo. bal tactic yar ila eeg, maadaama aan inta badan tactic yaryar iyo qaabab yaryar oo sahlan aan ku baro dadka. bal aynu eegno kaasi maxaa u taqaanaa? wa baa laga yaabaa inaad tiraahdo, laakiin waadu saas maaha, waa marka uu kordhig leeyahay. wa markaasuu yahay. haddaba xarafka markaad aragtid, xarafka saasaad u eegaysaa. tusaale ahaan hadda halkaas waxbaa kuugu qoran, saasaad u eegaysaa. isla markaba ha sheegin, waa inaad eegtaa kordhiga, hoos dhiga ama gudniinka ku yahay baad eegaysaa. adoon kaa eegin ha sheegin. markaad kan marka ugu horeysa xarafkan eeg inay yani ha tahay waa iska fahmaysaa, laakiin markaa waxaad eegaysaa ma kordhigan tahay, ma hoos dhigan tahay, ma gudan tahay. markaad intaa eegtid ba hadday kordhigan tahayna ha la dhahaysaa, haddii hoos dhigan tahayna hi baa dhahaysaa, haddii gudan tahayna hu baa dhahaysaa. waa soo socotaa casharka huuda waa soo socotaa, laakiin maanta waxaan dhigan doonaa keliya yani inaad fahantid xarafka waxa ka sarreeya. haddii xarafkani uu kugu adag yahay, kaasi waa dhibaato weeyaan. waa inaad alifkii ula laabata, alif ba ta tha jiim xa kha deel dal. kaa waa inaad aad casharka ku laabataa, oo adigoo oon soo diyaarin oo soo jilcin oo qaabka uu xarafkaasi u eeg yahay aadan garan. yani waxaa laga yaabaa qeybbaa waxay iskaga khaldamaan ta'da oo kale iyo ya-da dadka qeybbaa iskaga khaldan. hadhowta isku qaab baa loo qorayaa. hadhowta ya-dina saasaa loo qori doonaa, taadana saasaa loo qori doonaa. laakiin maxay ku kala duwan yihiin? taadun 2 dhibcood baa korka la saarayaa, ya-dun 2 dhibcood baa hoos laga dhigayaa. marka hadhowta isku qaab baa lagu qorayaa. marka dadka qeyb baa ku wareeran awal mataaba mise waa ya. marka ya-da iyo dhibcaheedii meel ahayd bay dadku qaybo ay ku wareeraan, talo xaggee dhigtaa qaabkaasoo kale. ya-du mar walba hoos dhigaasay labadaa dhibcood bay leedahay. ya hoosku labaley baa soomaaligu ay dhahaan, laakiin inagu maanta sidaa u qaadan mayno. okay, casharkeenii maanta ee hoos dhiga ahaa intaasaan kusoo afmeerayaa. casharka dib ugu laabo, codkayga si fiican u dhegeyso. insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in maalin dhow sida ugu degdegsiyaha badan aad u baran doontid qaybtan higaada afka carabiga insha allahu tacaala. aad iyo aad baan ku salaamaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiinba.